السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتسنتهين maanta waa sabti 8 bisha 2 ee February sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago Soomaali kale oo dambigooda qirtay kiiskii Feeding Our Future ee lacagtii 250 milyan ahayd ee la musuqmaasuqay xilligii coronavirus oo lagu talagalay in cunto lagu siiyo caruurta liita oo xilligaas iskuuladii aysan u jirin waan idin la wadaagaya arrintaasi iyo sidoo kalena ciidamada ICE oo loo ogolaaday in xabsiyada federaalka hadda ay dadka ku xiri karaan meel ay dadka ku xiraan ayay la'aayeen laakiin hadda xabsiyadii federaalka ayaa loo ogolaaday iyo waliba Trump oo ka careysan in ciidamada ICE dad badanna aysan soo xiraynin dad badanna aysan masaafuraynin wuxuu yiri wax u jiraan sidan ma aanan isku ogeyn arrintaasina sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore aan ku bilaabo kiiskii Feeding Our Future oo 70kii qof ee lagu soo eedeeyay musuqmaasuqa lacagtii 250 milyan ahayd ee xilligii coronavirus loogu talagalay in caruurta low income ka lagu siiyo cunto maadaama iskuuladii ay cuntada ka cuni jireen ay xirnaayeen ayaa maalin kastaba dad cusub ay dambigooda qiranayaan 70 qof dadka ugu badan ee dacwadan lagu soo oogay Soomaali ayaa u badan marka hadda waxa soo baxday in 3 qof oo kale oo Soomaali oo dheeraad ah iyo nin Oromo inuu yahay u malaynayo xaaskiisa maadaama Oromo ay ahayd toddobaadkii hore ay dambigeeda qirtay ayaa isaguna dambigiisa qirtay saddexdan qof ee hadda Soomaalida dambigooda qirtay waa walaalo sidaan filayo because last name-ku waa ay wada wadaagaan waa Samsam Jaamac oo konto jir ah oo register ka soo jeeda Minnesota Mustafa Jaamac oo isaguna 48 jir ah oo register Minnesota ka soo jeeda iyo waliba Caasha Jaamac oo Lakeville Minnesota ka soo jeeda oo 42 jir ah dhamaantoodba waxay qirteen dambi ah isdabamarin lacageed ayay qirteen waxaana ay sheegeen in lagu eedeeyay inay company ay samaysteen ay dhahayeen caruur ayaan ku qoodinaynaa laakiin lacagtaasi waxa dacwad ogayaashu ay sheegeen in iyagu ay jeebka gashteen in ka badan 2.3 milyan oo dollar lacagtaasina waxay ku qarash gareeyeen in ay guryo ama hanti ay ka iibsadaan Minnesota Ohio iyo waliba wadanka Turkey in ay hantiyo kala duwan ay ka iibsadeen Mustafa Jaamac xaaskiisa ayaan Jaamac waxa ay dambigeeda qirtay iyadana toddobaadkii la soo dhaafay xilliga la xukumayo marka qofka dambigiisa uu qirto maxkamadda lama saarayo garsooraha ayaa go'aan ka gaaray xilliga la xukumayo marka iyo sanad inta sano oo lagu xukumayo garsooraha ayaa go'aan ka gaari doona arrintaasina waa ay jirtaa sidoo kalena Cabdijabbaar Xuseen nin la yiraahdo oo isaguna Shookabi ka soo jeedo 44 jir ah ayaa isaguna waxa uu qirtay hal dambi oo ah in uu ku kacay musuqmaasuq sida darteed xaaskiisa oo Makfira Xuseen la yiraahdo iyo isaga 8.8 milyan oo lacag ah ayaa waxa la leeyahay urur aan faa'iido doonahayn oo Shamisa Hobbs la yiraahdo ay sameysteen sidaas darteed ayay lacagtaasi ku qaateen waxay dhahayeen caruur ayaan qoodinaynaa laakiin ma aysan qoodinaynin marka 33 qof oo kamid ah 70kii qof ee dacwada lagu soo oogay hadda dambigooda ayay qirteen haweeneyda ururka Feeding Our Future oo lacagtan dadka siiyayna iyo waliba nin isaguna Saalim Xuseen la yiraahdo oo Soomaali ah oo maqaayada Safari wax kala aha waxa ay kiiskooda u bilaaban doonaa maalinta Isniinta ee soo socota kadib markii xeerbeegtidii dhageysan lahayd la xulay toddobaadkii la soo dhaafay marka Soomaali fara badan ayaa wali dambigooda qiranaya marka qofku markuu dambigiisa qirtana garsooraha ayaa waxa uu go'aan ka gaaraya inta sano oo lagu xukumayo dhinaca kale ciidamada ICE waa ku yiri dad fara badan ayaan sii daynay sababo la xiriira meel aan ku hayno ayaasan jirin oo xabsiya sida darteed hadda xabsiyada federaalka ayaa waxa la leeyahay ciidamada ICE ay isticmaalayaan oo maamulka Trump uu ogolaaday in xabsiyada federaalka ay isticmaalaan maamulka Trump ayaa waxa la leeyahay waxa uu heshiis la gaaray waaxda xabsiyada federaalka ah ee wadanka sidaas darteed waxa ay ku hayn doonaan dadka ay soo qabqabtaan ka hor inta aan la masaafurinin qoraal ka soo baxay waaxda xabsiyada ayaa waxa ay leeyihiin waxaan caawinaynaa ciidamada ICE oo aan ku caawinaynaa sidii dadkaasi ay soo qabtaan aan ugu sii hayn lahayn inta ay ka masaafurinayaan waxaanan fulinaynaa ay yiraahdeen siyaasadda ah wada shaqaynta amaba in maamulka Trump uu guushii uu doonayay siyaasadiisa uu ka gaaro waxa xabsiyadu ay sheegeen sababo la xiriira privacy-ga dhinaca ammaanka oo badqabka dadka iyo sidoo kalena dhinaca ammaankooda ma doonayna inaan sheegno legal status-ka macnaha immigration-ka heerka ay ka joogaan dadkaasi naloo keenayo iyo sidoo kale tirada ay yihiin iyo meelaha lagu haynayo ma doonayna inaan sheegno ayay leeyihiin laakiin xabsiyada federaalka waxa la soo ogaaday oo ku kala yaala
Los Angeles gobolka California, Miami Florida, Philadelphia oo Pennsylvania, Atlanta Georgia, iyo sidoo kalena Leavenworth oo ku taala Texas, iyo sidoo kalena Berlin oo ku taala New Hampshire in ay yihiin meelaha la doonayo in la geeyo dadkaasi. Waxa la leeyahay hadda xabsiga Miami oo kale waxaa la geyn doonaa ilaa iyo 500 oo qof. Marka arintaasi waxa ay kordhinaysaa tirada dadka ay soo qabqaban karaan ciidamada ICE maadaama hadda xabsiyo dheeri ay heleen oo xabsiyadii ICE ay maamuleysay ay buux dhaafeen. sidaas darteed waxa la leeyahay waxa laga yaabaa inay kordhiyaan tirada dadka ay soo qaban karaan. marka xabsiyadu waxa ay hoos yimaadaan federaalka wasaaradda cadaaladda. sidaas darteed waxa la leeyahay waxay leeyihiin ilaa iyo 30,000 oo shaqaalaha xabsiyada federaalka waana 122 xarumood amaba xabsi oo ay leeyihiin dowladda federaalka ay leedahay 155,000 oo maxaabiis ayayna qaadaan oo intooda badan ba hadda qaarkood ay ku xiran yihiin. miisaaniyadooda sanadkii waa 8 bilyan, laakiin bishii December waxa ay sheegeen in ay xirayaan hal xabsi, sidoo kalena 3 xabsi oo kale ay iska bannaan yihiin sababo la xiriira shaqaale yaraan haysata waaxda xabsiyada, iyo sidoo kalena xabsiyadaasi oo duqoobay oo dib u dayactir aan lagu samaynin, iyo miisaaniyadda oo ku yar ayay dhowr xabsi ay u xirayeen. marka maamulka Trump waa kii wacad ku maray inuu kansaafurinayo in ka badan 11 milyan oo qof, laakiin ciidamada ICE hadda waxa la leeyahay goobihii dadka ay ku haynayeen oo 41,000 ayay qaadan gabi ahaantoodba hadda waa ay buuxaan. sidaa darteed waxa ay doonayaan meelo kale oo ay dadka ku xiraan. ICE waxay hadda dadka geynayaan goobaha dadka ay ku process gareeyaan ka hor inta aan la masaafurin oo garsoore la horgeynayo, kiiskiisa la dhageysanayo, iyo sidoo kalena xabsiyo si gaar ah loo leeyahay oo lacag ay ku bixiyaan oo dadka ay ku xirayaan. sidoo kalena xabsiyada localka ah ay isticmaalayaan oo boolisku ay leeyihiin. waxa jira sidoo kale jails ay contract kula jiraan oo dadka iyaguna ay ku sii xiran karaan. marka meel kasta oo ay dad ku xiri karaan ciidamada ICE hadda waa ay bartilmaameedsanayaan. waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan sii kordhino dadka aan soo qabqabanayna. arrintan hadda Trump waxa la leeyahay wuxuu aad uga careysan yahay sababta ciidamada ICE dad fara badanna aysan u soo xiraynin oo sharci darro ah, tirada dadka ay masaafurinayaan ay aad u yar tahay. arrintaas waxa la leeyahay Trump waa ka careysiisay. marka macnaheedu waxay tahay waa inaad laba laabtaan dadaalkiina oo dadka aad soo xiraysaanna badisaan, dadka aad masaafurinaysaanna sidoo kale aad badisaan. sidoo kale wasiirka amniga gudaha Kristen Noem ayaa waxa ay booqatay xabsiga Guantanamo Bay, halkaasi oo Trump sheegay maxaabiista kuwa ugu xun in la geynayo. hadda Khamiistii diyaaradii labaad ayaa gaartay ayaa la leeyahay xabsiga Guantanamo Bay, waxaana sidoo kalena ay hadda kooxaha immigrationka xuquuqdooda u dooda ay waraaq u direen maamulka Trump oo ay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan soo aragno sida maxaabiista halkaasi lagu xirayay noloshooda iyo sida loola dhaqmayo, in loo ogolaan doono iyo in kale sidoo kale lama oga. sidoo kale afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa Arbacadii waxay sheegtay in ilaa iyo January 20 markii Trump xilka uu la wareegay 8,000 oo qof laga soo xiray guud ahaan wadanka. dadkaasi laakiin dad dambiilayaal ayay u badan yihiin. waxay leeyihiin waxa la sii daayay 461 qof oo xaalado caafimaad loo sii daayay, iyo sidoo kale meel dadkaasi lagu sii hayo in loo waayay. waxaan idiin sheegeen maxkamaduhu aysan u ogolaanaynin muddo cayiman ka badan in dadkaasi la iska sii hayn karo oo dadka qaar la sii daynayo. ICE sidoo kalena waxa la leeyahay average ahaan ama isku celcelis ahaan 787 qof ayay soo xirayeen maalin kasta laga soo bilaabo 23 January ilaa iyo 31 January, halka xilligii Biden ay ahayd guud ahaan sanadkii la soo dhaafay oo sanadku wuxuu ka bilowday October wuxuuna ku eeyahay September. waxay yiraahdeen 312 qof ayaa 12 bilood ee sanadkii la soo dhaafay oo ku ekayd September 30. sidoo kalena waxa jirtay Trump xilligii uu madaxweynaha ahaa 2016 ilaa iyo 20 in ay heshiis la galeen sanadkii 2018 waaxda xabsiyada federaalka ee wadanka. sidaa darteed ICE iyo ciidamada xuduudda ilaaliya ee CBP in loo ogolaaday 1,600 inay ku xiran karaan xarumaha federaalka oo ku kala yilay Arizona, California, Oregon, Washington iyo Texas. marka sidaas darteed ayaa waxaa hadda mar kale ay waaxda xabsiyada federaalka ay leeyihiin ciidamada ICE waynu u ogolaanaynaa in xabsiyada federaalka dadka ay soo qabtaan ay ku xiri karaan. taasi macnaheedu waxay tahay in tirada dadka ay soo qabanayaan ay kordhin karaan. sidoo kale Trump oo maalimadii shalay la kulmayay ra'iisul wasaaraha wadanka Japan aqalka cad kula kulmayay ayaa su'aal la weydiiyay oo ah wargeyska Time Magazine inuu page-kiisa coverka ugu horeeya uu ku soo qoray ninkii Elon Musk ahaa oo kursiga aqalka cad yaala ee looga arrimiyo Mareykanka ee Russell Disk la yiraahdo isagoo ka dambeeya in ay halkaasi ku soo qoreen. Trump waxa la arkayay markii su'aashaasi la weydiiyay sida uu aragtaa sawirkaasi ay Time Magazine ay wargeyskooda ay bagga hore uga soo qoreen. aad ayuu u carooday, wejigiisana waa uu isbedelay. markaasi ayuu wuxuu yiri
timex weli ma shaqeeya waxaan ognahay sidoo kale hadda bishii January ee la soo dhaafay in isaga shakhsiga sanadka ay u aqoonsadeen welibana uu tagay una mahad celiyay marka wuxuu leeyahay weli ma shaqeeya ayuu yiri sidaas darteed waxa la leeyahay aad ayuu uga carooday su'aashaasi iyo sawirkaasi in ninkii Elon Musk ahaa in meeshaasi uu ka soo muuqdo hadda waxa la leeyahay wadanka isaga miyaa madaxweyne ka mase Trump ayaa madaxweyne ka dadka qaarna waxay leeyihiin madaxweyne ku xigeenka JD Vance maba la arko isaga ayaa la hadal haya oo hadda isagii maba muuqdaba marka arintaasina waa ay jirtaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo